injineer Shariif Aadan ayaa ka waramaya dahabkan lagu arkay buuraha Sanaag ee roobku uu soo saaray. dahabku waa nooc hadduu buur yahay roots way, hadduu oo waadi yahay waxa way sedimentary rocks way. waadi waa taqaanaa oo aniga waxaan xasuusanahay mar oo ka imid bariyan ka imid geologina isla soconay baaburku markaan kasoo tilaabsanay waadigii biyo intee lacag geedii kuwaas ay wataan buurahaas hadday ku dhacaan roobkaas oo mihigaana wuxuu soo jibina buurahaasi macdantaas soo jibina marka waxay u imaanaysaa daadadkiyaa keenaya hoos baa imaanaya marka ninka reer baadiyaha markuu dahabkaas uu arko asaga wuxuu u malaynayaa fadhigii dahabka inuu meeshan yahay ma buurahaas la raadsana wadankii qani waaye aw bare waa taqaana xadkan Soomaaliland la leedahay Ethiopia waaye annaga markii Mengistu noolaa markii geologin baan ahayn macdintii dahabkan baarin research aniga jaamacadda London aga soo qaatay aw bare aan ka soo qaatay ciidaas oo dahab ku jirto oo quality-giisa oo fiican buurahaas ma Ethiopia buuraheeda aaday u waaweyn yihiin waayo waagii oo maartay volcanoes ku socday dhowr macdan ay leedahay waa soo guraysa wadankaas intay soo shubaan jubbooyinkaas ay ku soo shubaan. Professor Cabdi Siyaad Camey waxa uu maadada cilmiga dhulka iyo waxa ku jira ka dhigaa jaamacadda University of Western Cape ee duleedka magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Waxa uu la soo shaqeeyay shirkado dhagxaanta qaaliga ah ka baarayay Somaliland wuxuuna si gaar ah daraasad ugu sameeyay qaar ka mid ah macdanta gobolada dhexe ee Soomaaliya. waxaan weydiiyey inta ay la eg tahay macdanta laga sheego Soomaaliya. Walaal dhibka jiro waxa weeye Soomaaliya macdan badan lama qiimeeyo macdamo waxa jiro laba macdan oo gobolada waxa ku jira xeelbuur oo kale uranium-ka iyo dhagax burjikada labadaba master PhD ka sameeyay cilmi baaritaan ka sameeyay laakiin waqooyi macdan badan aan baaray meelo badan macdan ku jira waa loogiyaa dahab platinum other minerals laakiin ilaa hadda waxa la qiimeeyo laakiin intaas ku jirto ma jirto laakiin waa jiraan Sanaag meelo badan oo dahab aan ka helno waa jiraan laakiin waxa u baahan in la qiimeeyo intii leegiin inta ounce oo laga soo saari karo in la ogaado Soomaaliya dhibaatadana ay tahay dhulkii macdanta ku jirtay qabaa'ilada kala degan dawlad awood loo ka shaqeyn karto sidii dawladnimo u shaqeynayna ma jirto qof kasta iska ajnabi xataa iska qoto oo iska daldalanaya macdantii wadan dawlad awood loo ka celi kartana ma qabno dhibaatadaas aan haysto laakiin runtii sanaaga sheegay Soomaaliya meelo badan oo macdanta ku badan yihiin sida Somaliland dhinaca Puntland dhinaca Bay area gobolada dhexe Jubaland meelo badan macdan iyo basoo ku jira laakiin waa nasiibdaro waa ka gaajana dawladda u baahannahay oo ka shaqeyn karto khayraadka wadanka inay soo saarto wadanka dadka inay soo saarto ayadoo shakhsiyaad lama qaban ayagu iska maamushaan oo jabkay ku shuftaan. Soomaaliya dhaqaale ahaan waxay hadda ku tiirsan tahay dhaqaale aan habaysnayn oo ay maamulaan shirkado gaar loo leeyahay oo aan raacin xeerarka ganacsiga ee dalalka adduunka ay degsadaan. Dhaqaalaheedu waxa uu si weyn ugu tiirsan yahay xoolaha nool. Lacagaha ay qurba joogtu u diraan eheladooda ee xawaaladaha la marsiiyo iyo isgaarsiinta. Dhinaca kale Soomaaliya waxay leedahay dhul beereed ka badan 8 milyan oo hektar oo carrasan u badan 3,000 oo kilomitir xeeb dherkeedu dhan yahay oo ah tan ugu dheer qaaradda Afrika canabadeeda ka buuxa kalluun macdan iyo shidaal. Barasare Axmed Muumin Warfaa waxa uu ku takhasusay cilmiga beeraha muddo 40 sano ka badan ayuu ka shaqaynayay waxaana uu muddo dheer wax ka dhigayay jaamacadaha Mareykanka. kalluunka hadda ma sha Allah kalluunka arkayso tuna fish iyo dhulkaas la leeyahay wuxuu ka soo shiraacda muxuu ilaa Koonfur Afrika Soomaaliya ku rimaa ilaa wuxuu ku dhalaa qandaliya xaabiyo dhulkaas uu ku dhalaa maartay marka Soomaaliya badda cas iyo badda madow labadaba waan leenahay alxamdulillah Soomaaliya khayraada alla isugu geeymaartay. Shirkii madasha aragti wadaaga ee uu macadka Heritage fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ugu qabtay Djibouti aqoon-yahanka iyo qaar ka mid ah haldoorka Soomaalida ayaa waxyaabihii lagu soo bandhigay waxa ka mid ahaa daraasado laga sameeyay khayraadka badda Soomaaliya. Cabdiraxmaan Kulmiye ayaa ka mid ahaa aqoon-yahankii halkaasi ka hadlay. baddan waxay tahay meelaha ugu khayraadka badan 54 meelood oo la qiimeeyay oo baddeena la mid ah badweynta Hindiya waxaan ka galnay afraad badda cas ama gacanka cadmeedna waxaan ka galnay afraad baan ka galnay surveys la sameeyay oo marakiib samaysay oo Soomaalidu marka ay dawladda Soomaaliya ay dalabtay waxa lagu ogaaday baddeena in laga soo saari karo 200,000 ilaa 500,000 oo tan oo kalluuna sanadkii iyadoo khayraadka waxa la yeelay malaayiin qof oo Soomaali ayaa badda la geyn karaa oo badda maartay lagu jaahin karaa laakiin waa ka gaajeysanahay
haddii lasii horumariyana maaragtay wax badan ba wuxuu ka qayb qaadan lahaa horumarinta qaran ee dalka. inkastoo ay caqabado dhinaca amniga haystaan oo aan horeyna looga faa'iidaysan, haddana Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay dalalka hodanka ku ah kaydadka shidaalka ciirin oo lagu qiyaaso in ka badan 110 bilyan oo fuusto. waxay juqraafi ahaan dhacdaa marin muhiim u ah isu kala gooshka maraakiibta dunida. wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ee Soomaaliya, injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed, ayaa iga warramay waxa lagu ogaaday baaritaanada ilaa iyo hadda lagu sameeyay shidaalka Soomaaliya. waa